hay-adaha ammaanka ee dalka Mareykanka ayaa ogaaday in Israa'iil ay ka dambeysay basaasid dhinaca telefoonada gacanta ah oo labadii sannadood ee u dambeeyay lagu sameynayay agagaarka aqalka cad ee looga taliyo dalkaasi. laakiin arrinta yaabka leh ayaa ah in xukuumadda Mareykanku aanay arrintaasi waxyada uga jeedin Israa'iil. shabakada caanka ah ee Politico ayaa mas'uul ka tirsan xukuumadda Mareykanka oo aanay magacaabin ka soo xigtay in xukuumadda madaxweyne Donald Trump ay iska ilaalisay inay eedo basaasinimo dusha u saarto xukuumadda Israa'iil. arrintaas oo la yaab ku noqotay maadaama aanay hore u dhici jirin in la qariyo cidda leh eedda basaasid kastoo ay hay-adaha sirdoonka Mareykanku fashiliyaan. isla markaasna ay hore u dhacday in Mareykanku madaxweyne Trump hortii xabsiyada u taxaabay basaasin Israa'iil u shaqaynayay. shabakada Politico waxay warbixinteeda ku sheegtay in sirdoonka Mareykanku uu ogaaday in meel aan aqalka cad ka fogeyn lagu rakibay qalabka wax lagu basaaso oo awood u leh inuu isu ekaysiiyo biraha isgaadhsiinta isku xidha si uu u khiyaameeyo telefoonada gacanta. taasi ayaa u suuro gelinaysa in laga ogaan karo meelaha ay ku sugan yihiin dadka telefoonada ku xidhiidhaya iyo qofka telefoonka lagala hadlayaba. mas-uulkan la hadlay shabakada waxa uu sheegay in weli ay socdaan baadhitaano dheeraad ah oo lagu ogaanayo in qalabkan lagu basaastay telefoonka madaxweynaha dalka Mareykanka ee haatan Donald Trump iyo mas-uuliyiin sarsare oo xukuumaddiisa ka tirsan iyo sidoo kale la taliyayaasha madaxweynaha. dhanka kale ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa si degdeg ah uga jawaabay warbixinta ay daawacday shabakadaasi oo uu ku tilmaamay been qaawan. warmurtiyeed uu Netanyahu soo saaray ayaa uu ku sheegay in xukuumadda Israa'iil ay ku dhaqanto go'aan sanado badan shaqaynayay oo dowladda Israa'iil ay ku mamnuucday in Israa'iil ay Mareykanka gudihiisa iyo dibaddiisa ka fuliso wax howlgallo basaasid ah kuwaasi oo ka dhan ah dalka Mareykanka.